Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada channelka Garaadsi. Muuqaalkeenan maanta waxa uu ku saabsan yahay muuqaal aad u xasaasiya. Kaasi oo ah kabaha shaydaanka. Kabaha shaydaanka ayaa waxa uu soo saartay shirkadda lagu magacaabo MSHF. Weegii la soo dhaafay. Waxaana YouTube-ka ka soo muuqdeen jimcihii la soo dhaafay kabahan isagoo Lil Nas X fanaanka lagu magacaabo uu hees ku soo bandhigay. Taariikhda fanaankan dib ayaan uga dhiganaynaa. 666 beer ayay soo saartay shirkadda MSHF. kuwaasi oo wata astaanta shirkadda lagu magacaabo Nike. Nike waxay gudbisay dacwad ka dhan ah suucadda ganacsiga iyo cabashooyin khafiif ah oo ka dhan ah shirkadda MSH kuwaasi oo la xiriira kabaha shaydaanka. Kabaha shaydaanka waxa la soo saaray iyadoo aan ogolaansho laga haysan shirkadda Nike. Shirkadda Nike waxay ku jirtaa eedaynta shirkaddan. Haddaba fanaankani muxuu yahay? Fanaankan soo saaray kaban magaciisa saxda ah waa Montero Lamaro Hill. wuxuu dhashay Abriil 1999 oo la yaqaan magaciisa masraxa Lil Nas X. waa shakhsiyad Mareykan ah, rapper ah, qoraan ah. wuxuuna caan ku noqday siideynta heesta dalkiisa ee loo yaqaan Old Town Road, taasoo markii ugu horeysay uu ku guuleystay caanka noqoshada barnaamijka warbaahinta bulshada ee TikTok runtii 2019. haddaba ninkan lagu magacaabo Lil Nas X ma haysta wax diin ah, waa dadka caabuda shaydaanka, waxaanay aaminsan yihiin maba waa dadka u dooda inay soo galmoon karaan jinsiyada isku mid ah. kaban shaydaanka ayaa xagga ugu dambe waxa ku jira dhibic dhiig ah kaasi oo laga qaaday shaqaalaha, waxaana ku qoran lambarkaasina waa 1018 waana lacagta lagu iibinayo. calaamadaha shaydaanka oo ku yaala meelaha xagga sare kaaga muuqata. qiimaha ay hadda joogaan kabani waa $1018 oo lacag ah. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. muuqaalkana dadka shay fadlan like sar nagu soo biir haddana nagu soo biirno calaamada subscribe taabo hana ilaawin inaad furato kan baleelka. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.